guddiga ka hortagga caabuqa coronavirus ee gobolka Awdal ee magaalada Boorama ayaa maanta soo kormeeray laba waadh oo dib u habeyn ay ku sameysay dowladda hoose oo ku yaala dhakhtarka weyn ee magaalada Boorama isla markaana ay dowladda hoose gacanta ku hayso guddiga ka hortagga caabuqa coronavirus ayaa labada waadh booqday ayaa halkaa waxay ka jeediyeen hadallo kala duwan ugu horeynba waxaa goobta ka hadlay isla markaana sharaxay agaasimaha isbitaalka weyn ee magaalada Boorama Dr. Gahaad iyo sidoo kale isku duwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Awdal Mukhtaar Jaamac ayaa uga mahadceliyay dowladda hoose dhismahan iyo waliba dib u habeyntan ay ku sameysay dhismaha dharkan loogu talagalay in lagula tacaalo dadka uu soo rito cudurka COVID-19 waxay kafaalo qaadeen inay dayactir iyo dib u habeyn ku sameeyaan si loogu diyaar garoobo dadka qaba xanuun dadka loo malaynayo xanuunkan inuu COVID intaan la baarin meeshii la dhigi lahaa waxaanu u diyaarinay labada waad iyo qol mataqaanaa kale oo dhakhtarku fadhiisto saddexdii qolba way ribeer gareeyeen dayactir baad sidaa gacantaad arkaysaan ay ku hayaan oo runtii aad u qurux badan iyagoo horeyna dowladda hoose ay noogu tabarucday qalabka faraxalka maanta kale waxaan u taaganahay hawl muhiim ahayd oo bariyahan baan hadal haynay oo ah booskii loo asteeyay inaan ku sameeyno triage ama dadka kala horeysiintiisa cusbitaalka guud inaan bal wax yar dayactira ka qabano waxaan aad uga mahadnaqnaa mashruuca GPLG hawshan waxa ay kulay lacagtan iyo balaankan meel hor inoogu yaalay waxaan isla garanay xaaladda jirta darteed inaan meeshaas ku dayactiro maayirka magaalada Boorama Saleebaan Xasan Xaddi oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay inay waxqabadkooda laba ay gelin doonaan dhanka caafimaadka iyo badbaadinta dadka iyo waliba awoodooda waxqabad ay gelin doonaan dhanka caafimaadka waxaad moodaa anagii dhakhaatiir noqono ku talax tagnay saan xoogaa lagu noqon lahayn baahida keenaysa wixii kale baahiyana waan isku imaanay hadii la yiraahdo waxqabadkayga haduu meel kale oo ku taxalluqay maanta xagga caafimaadka way caafimaadkeeni baa halis ku jira aad iyo aad baa mahadsantiin barasaabka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Cali ayaa dhankiisa uga mahadceliyay cid kasta oo ka geysatay gacan dhismahan noqoto horta waa muhiim haddii yadii madowdahay dee qofkii aad keenaysayna waa ka sii liidataa meeshii baa liidataa marka meeshu meel saga dhaanta ilaa wuxuu doonayaa wax cudurkan uu ka daweeyo oo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa inay meel dhalaalaysa maanta tahay oo laga shaqeeyey oo wixii dambeena la dhigi doono qalaba shaqadeedina la bilaabay aad iyo aad baan uga mahadnaq cid kasta oo gacan ka geysatay haday tahay bahda caafimaadka iyo haday tahay bahda dowladda hoose wax kale uma wareegayna cudurkan waa cudur dee aan cidba dhaafaynin marka dee inaynu inagu isa seef garayno oo bal inagu dee intii aynu dadaali karno ummadeennana